Dr. Tedros TPLF ayuu ka mid ahaan jiray wasiir TPLF ayuu ahaa dalka Ethiopia isagoo wasiiraan anigu kula kulmay magaalada Diridhaba 2013 ama 12 May aakhirkeegii marka xisbiga uu ka mid ahaan jiray laakiin imika waxa loo baahan yahay xaqiiq cadayna in la keeno haddii kale dowladda Ethiopia iyo Afrika oo dhan haddii xaqiiq la'aan waxan la sheego ayaa ceeb ku noqonaysaa walaal maxay Afrika iyo Ethiopia oo dhan ceeb ugu noqonaysaa marka waxay ugu noqonaysaa waxa weeye ninkii ugu horeeyay ee Afrikaana ee dakhtara ee jagada adduunka caafimaadka ugu sarreysa lagu aaminay ee dowladda Ethiopia nafteedu ay u dooday si jagada u helo in maanta la dhaho waxaasuu sameeyey isagoon wax cadayna weli barka la soo dhigin waxa weeyaan wejigabax bay ku noqonaysaa Afrika oo dhan adduunyaduna way la yaabaysaa marka waxay arkaysaa waxa weeyaan inaan la kala saari karayn ee dantii gaar ahayd iyo dantii guud ee dowladda Ethiopia iyo Afrika oo dhanba Dr. Tedros waa Afrikaankii ugu horeeyay ee hogaamiya WHO hay'adda caafimaadka adduunka marka culays intee leeg ayay ku noqon doontaa eedan uga timid militariga dalkiisa wax way noqon mayso haddii xaqiiq la keeni waayo dee malaha meelahaynu ka nimid ayaa laga yaabaa ku tiri kuteentu inay wax bedeli karto laakiinse jimciyadda qurumahoo kale waxa weeyaan xaqiiqdii baa la eegayaa hadday wax jiraanna dee markaa isaga ay ceeb ku noqonaysaa waa laga saari meesha haddii xaqiiq la keeni waayana waxay ka bedelaysaa hawshiisa iyo jagadu haysto ma ayan jirto maalin ka hor ayay ahayd markii booliska federaalka Ethiopia uu shaaciyay liiska 76 sarkaal oo Tigray u badan oo uu doonayay in loo maxkamadeeyo khiyaano qaran marka xukuumadda Abiy Ahmed mar haddii haatan ay Dr. Tedrosna khiyaano ku tilmaantay inuu sameeyey ma waxay beegsanaysaa haldoorka Tigrayga waa suuragal waxayna noqon doontaa qaladka ugu weyn iyadoo maanta isleeyahay garta xaqa ah waxa la dowladda magaalada Addis Ababa fadhida Abiy Ahmed uu ka ra'iisul wasaaraha yahay ee xaq ku joogta hadday noqoto bahashi in la qabyaaladeeyo oo dabeedna dad gaar ah oo reer ah in la qabyaaladeeyo waxay noqon doontaa tii ka dhacday dowladdii Soomaaliya ee Hargeysa iyo Burco si gaar ah u dilasay barina si gaar ah u soo dishay marka waxay noqon doontaa waran iyadoo hay isku soo jeedinayso hadday ka dhigto diiradda la saarayo reerka qurba doodaada marka ditore ma waxay noqonaysaa in colaadan loo aanaynayo dimuqraadiyad xumo inay keentay dimuqraadiyad xumo may keenin waxa weeyaan laba qolo ayaa Ethiopia ku amartaaglayn jiray 200 sanadood ugu dambeeyay qolada Tigrayga iyo qolada Axmaarada muddada badan haysan jirtay labada qolo waxay u haystaan inaan dadka kale Ethiopiaanka gaar ahaan Oromada iyo Soomaalida oo afarta iyo wixii lamid ah inayna madax xagi karta ayna noqon karin wadanka Ethiopia marka qab iyo kibir ayaa keenay arrintan ee dimuqraadiyaddu ma keenin dimuqraadiyaddu waxay keentay in laga xoroobo iyakoo haddana la siinayo cod xaq ay u leeyihiin sida ummadaha kale marka waa kibirka ayaa maskaxdooda ku jira waxay qaadan laayihiin in dadkii ka soo horjeeday ee la mid ahaa wadanka lahaa inay ka talin karaan ayay diidan yihiin taana weeyaan dagaalka keentay walaa dalal badan iyo hay'ado caalami ah yaa waxay ku talinayeen in dagaalka la joojiyo oo wadahadal la galo oo dowladda iyo maamulka TPLF ay galaan marka sidee ku ogolaan kartaa dowladda dhexe in TPLF ay wadahadal la gasho iyadoo aan ognahay inaanay u hogaansanayn waxa weeye horta dee kuwa doonaya inay dhexdhexaadiyaan waa inay fahmaan distoorkan Abiy Ahmed iyo dowladdiisu ay ku dhaqmayaan waa kii hay keeneen Tigraygu naftooda ay keeneen TPLF keentay maantana tiibay diidayaan inay ku dhaqmaan intayna iyagu madax meesha ka ahayn marka ugu horeysa waa in lagu khasbaa TPLF inay ogolaato sharciga wadanka inay sidiisa ugu dhaqanto oo dowladda dhexe hay goyn karto waqtiga doorashada wadanka oo dhan ka dhacayaan haddii kaa la keeni waayo dagaalku wuu sii socon doonaa mana joogsan doono walaa qaabkay marka TPLF ugu tumanaysaa dastuurka aad sheegtay in iyaga lafahantooda ay soo sameeyeen laba siyaabood bay ugu tumanaysaa mid waxa weeyaan waa ka diiday in doorashadii dib loo dhigay hay ka qayb galaan iyadoo doorashada ay sugayaan guddiga madaxa bannaan taasi waa kow ta kale waxay seeyeen ciidan Ethiopiana oo degan gobolkaasi inay weeraraan labada arrimood ayaa keenay walaa marka qofka dhexdhexaad dowladaha doonaya inay dhexaadiyaan sharciga dastuurka wadanka iyo xaqa waa inay eegaan ee labada meelood la simin walaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Ethiopia waa tan midowga Afrika ay xarun u tahay AU-dana weli kumaanay guulaysan inay xalliso colaadaas marka taa ma waxay bannaanka soo dhigtay karti la'aanta midowga Afrika midowga Afrika iska boocboc weeyaan haddayna maalan dowladaha xoogga leh ee South Africaanka iyo wax la mid ah haddayna barbar gelin iyagu wax ma goyn karaan marka waxa weeyaan inay keenaan maalan imika madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa oo dimuqraadnimadiisa lagu kalsoon yahay inuu noqdo hormoodka dhexdhexaadinaya